waxaa magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway ka bilowday maxkamadaynta iyo dhageysiga dacwadda loo haysto wiilkii 18 jirka ahaa ee sida cunsuriyadda iyo sidoo kale nacaybka uu u qaba muslimiinta u dilay gabadhii muslimadda 34 jirka ahayd ee ka shaqeynaysay xarunta lagu daryeelaa carruurta. Dhageysiga dacwaddan oo ka bilaabatay maxkamadda magaalada Oslo ayaa waxa ay ku xukuntay wiilkan in 4 toddobaad kale lagu sii hayo xabsiga inta ay socoto dhageysiga dacwadiisa. Waxa ay maxkamadda arrinta ah in xabsiga lagu sii hayo 4 toddobaad kale u daliishatay in wiilkan weli u ciil qabo oo uu u caaboon yahay in uu laayo muslimiin kale oo ku nool dalka Norway. Isaga qudhiisa ayaa maxkamadda ka hor sheegay in uu Norway oga digay in ay noqoto dal muslim ah sida ay xaaladdu ku socoto haddii aanan laga hortagin muslimiintan ku sii faafayo guud ahaan dalka Norway. Wiilkan ayaa waxaa lagu soo oogay kiis argagixisinimo ah oo uu ku dilay 24 bishii Agosto gabar lagu magacaabo Tamima Nibras Johar oo ah 34 jir ka soo jeeda asal ahaan waddanka Itoobiya ahna muslimad. Wiilkan ayaa sheegay dilka gabadhan kadib in uu qorshihiisu ahaa in uu dil wadareed ka geysto masjidka magaalada Honefos oo ku yaala duleedka magaalada caasimadda ah ee Oslo. Waxa uuna sheegay inuu qorshihiisu ahaa in uu hub ka soo qaato guri ku yaalo deegaanka Hedalen oo uu ku neel yahay mid ka mid ah dadkii soo koriyay isaga. Waxa uuna sheegay in guriga uu ku ogaa qori oo uu doonayay in uu qoriga soo qaato dabadeedna soo abaaro masjidka magaalada Honefos halkaasuu doonayay in uu ku laayo muslimiinta ku sugan markaasi masjidka oo uu ku soo gaaro. Booliska ayaa ku waramayo in wiilkan markii ay ka qabanayeen magaalada Oslo aysan ka muuqan tabar badan oo uu u awoodo in uu ku sii laayo dad kale. Waxa ayna intaa ku dareen dacwadda ay ku soo oogeen oo ah mid dil ah aysan daba soconin dacwaddan kale oo ah damaciisa ahaa in uu doonayo xarunta muslimiinta magaalada Honefos in uu dad kale oo muslimiin ah si wadar ah ugu laayo. Waxa ayna sheegeen maadaama tabartiisa iyo taagtiisa aysan heerka gaarsiisnayn aysan ku soo oogin dacwaddan kale oo uu ahaa mid uu isagu damacsanaa. Waxa uuna sheegay in Norway uu uga digayo in la muslimeeyo maadaama muslimiintu ay ku sii badanayaan isaguna uu u qabo cadaawad badan oo uusan qarsanaynin. Halka ay wararka kuwooda ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.